munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna daahfurayay xarunta cusub ee Salaam Somali Bank ayaa lagu qabtay xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Balad Xaawo mas'uuliin ka socotay Salaam Somali Bank maamulka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee degmada Balad Xaawo odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee ganacsatada degmada ururada waxbarashada caafimaadka iyo waliba ururka haweenka degmada Balad Xaawo ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay madaxa operation-ka Salaam Somali Bank mudane Saciid Macallin waxaana uu faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay bulshada u qabtaan Salaam Somali Bank waxaa la aasaasay October 2009 markaan 10 sano ku sii socdaa waxaa loo aasaasay ujeedada loo aasaasay waxay ahayd ugu weyneed inuu ka xaqabtiro bulshooyinka Soomaaliyeed dhammaan baahiyaha ay u qabaan maalgelin iyo adeegyo bangi oo islaami ah aragtida oo tiirsanaya bangigu waxay ahayd inuu noqdo soo bandhigaha mashaariicda maalgelineed iyo adeegyo bangi islaami ah oo ka caagan ribo ama dulsaar sida loo yaqaano iyo ganacsiga aan waafaqsanayn shariicada islaamka hadafka bangiga loo aasaasay intaaba uu ahaa inuu dhinaca bangiyada islaamiga ah nidaamkooda oo soo ilaalinayo dhammaan adeegyadii loo baahnaa in la waafajiyo shariicada islaamka bangiga waqtigaas la furay wuxuu ahaa bangi ugu horeeyay ee laga furo Soomaaliya burburkii ka bacdi wuxuuna ahaa bangi ugu horeeyay oo islaami ah oo laga furo waddanka Soomaaliya markii ugu horeysay waxaa qabsoomay howlo badan magaaladan Balad Xaawo bangigu wuxuu ka shaqo bilaabay 2012 xaqiiqdii asigoon uu ka furnayn barnaamij rasmi ah ama xafiis rasmi ah ay waqtigaas soo shaqo bilaabay oo adeegyadiisa laga isticmaalay marka sidaa darteed bangiga wax taqaanaan adeegyadiisana waa taqaanaan horena inta badan waa u isticmaali jirteen maanta waxaan u sameynay waa xafiis yar albaab yar aan u sameynay shaqadiisu hore halkaan uga socotay bangiga wuxuu qabtaa laba adeeg oo si kala baxbaxayo mid uu yahay adeegyo uu qabto maxaa la hayay ashqaasta iyo shirkadaha iyo adeegyo maalgelin waa adeega magaciisa kulli waxa lagu soo koobaa markii la yiraahdo bank service waa adeeg bangi iyo adeeg maalgelin labadaas adeeg uu qabtaa adeega maalgelinta waxaan uga hadli doono waaxd investment-iga oo nala joogto ama qaybta investment-iga oo nala joogto naga hadli doonto waxaan rabaa inaan adeegyada kale wax yar ka iraahdo haddii alla idmo bangigu wuxuu furaa akoono bulshadu ku kaydsato xisaabtooda ku shubato lacagtooda ku dhaqdhaqaajiso ganacsigooda akoonnadaas waa laba qayb waa akoon kayd ah iyo akoon ganacsi akoon ganacsi labadaba waxaa furo kara shirkadna way furo kartaa shakhsina waa furo karaa akoonka ganacsiga inta badan shirkadaha furto shakhsi ahaanna waa loo isticmaali karaa akoonka kaydka ah waxaa u badan ashqaasta shirkad ahaanna waa loo isticmaali karaa oo shirkada laftoodu akoonna waxay furtaan ee wax ku kaydsadaan labadaas akoon waxaa ka farcama adeegyo badan oo kala duwan oo fududaynaya labadaas akoon si u shaqay lahaayeen lacagta meesha ugu jirto qofka ama shirkadda sida ugu adeega lahaay sida ugu fudud adeegyadaas waxaa ka mid ah adeega aad taqaanaan ee deeqtoon oo isku xirayo EPC iyo akoonkaaga isku xirayo taas oo fududaynaysa inaad mar walba lacag dhigi kartid akoonkaaga kana la bixi kartid waqti walba iyo goob kastoo Soomaaliya ka mid ah waxaan leeyahay dhammaan qaybgalayaasha xafladan oo isugu jira maamulka degmada iyo ganacsatada degmada culimadiinka iyo dhammaan qaybaha kale ee bulshada intaas kadib waxaan rajaynayaa inaan insha Allah waxaan ka faa'iideysanayaa waqtiga si yar oo kooban aan maaragtay aan wax uga iraahdo qaybaha quseeya maalgelinta bankigu sameeyo
maadaama raggii igu horreeyey ay si kooban usoo gudbiyeen ama usoo bandhigeen adeegyada kaleeta ee bankigu sameeyo. Salaam Somali Banki sida hore loo sheegay waa bankii ugu horreeyey oo islaamiya oo waddanka ka fuliya adeegyo islaamiga ama maalgelin islaamiga ka fuliya, waana sida bankiyada islaamka lagu yaqaanana Salaam Somali Banki dhammaan adeegyadiisa iyo maalgelintiisa iyo shaqooyinkiisa oo dhan waxay waafaqsan yihiin shareecada islaamka, waxayna ka caagan yihiin wax kasta oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka. Salaam Somali Banki ma isticmaalo ama wuxuu ka caagan yahay waxa loo yaqaano dulsaarka ama ribada, asagu ma qaato mana bixiyo. wuxuu ka caagan yahay ganacsiga aan waafaqsanayn shareecada islaamka, wuxuu ka caagan yahay ganacsiyada shubahaadka uu ku jiro ama macnaha maaragtay waxyaabaha oo laga shaki kara xambaarsan ayuu maaragtay uu ka caagan yahay. intaas kadib Salaam Somali Banki maalgelinta uu sameeyo waxay ku kooban tahay ama waxa ay tahay markaan soo koobno dhowr qaybood ayay isugu jirtaa, maadaama baahiyaha dadka ay qabaan ay kala duwan yihiin. marka waxaa ugu horeeya oo Salaam Somali Banki uu diyaar u leeyahay bulshada maalgelinta hantida maguurtada ah iyo hantida guurtada ah. maalgelinta hantida maguurtada ah ama xalinta baahiyaha dadka qaba, maalan guryaha, dhulalka, gaadiidka, badeecadaha kala duwan. maalgelintaasna waxaa loo yaqaanaa muraabaxa. maalgelintaas waxaa loo yaqaanaa oo maaragtay afka carabiga loogu yaqaanaa muraabax. waxaana loogu talagalay ama Salaam Banki uu isticmaalaa xalinta dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo u baahan guryo in maaragtay loo maalgeliyo, dhul bannaan in loo maalgeliyo, badeecado in loo maalgeliyo, gaadiid in loo maalgeliyo, mashiino in loo maalgeliyo. waa macnaha maaragtay qaybta ugu talagalay inuu macaamiisha baahidaas qabta baahideeda ku daboolo. waxaana la yidhaahdaa muraabaxa ayaa la yidhaahdaa. muraabaxadu waxay ku salaysan tahay beec, waxaana isdhaafaya badeeco iyo lacag ayaa isdhaafaya, halka dulsaarku ay yihiin lacag ay ku salaysan tahay oo qofkaan lacag inta la deemiyo oo interest la saaro hadhowdii lacagtaas uu soo celinayo. marka meeshaas way ku kala duwan yihiin oo macnaha muraabaxadu waxay ku dhacaysaa badeeco ayay ku dhacaysaa, waxaa isdhaafaya waa badeeco iyo lacag oo qofkaa markii uu muraabaxo loo sameeyo isaga wuxuu qaadanaa hantiyuu qaadanaa, ama dhuluu qaadanaa, ama baaburuu qaadanaa, ama guriyuu qaadanaa, ama badeecuu qaadanaa. hadhow wuxuu soo celinayo oo uu soo yareynayana waxay noqonaysaa lacagay noqonaysaa insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب آد بان إلهي سبحانه وتعالى ما هاد علنتي كسكو أيان إذنكو ما لعلنينا إذنكو الآن غير بلد حاول وهذا سواء جيبتين وقت كلهم وحاد نصورتين وقت جيني شقوي كينا نصور غير دريسين مهمدو وحي أهيك inaan fariin idin gaarsiino, idinkana fariintaas aada naga dhegaysataan si xurmad leh waana ku mahadsantihiin. intaa markaan ka gudbo mahadcelinta, waxaan maanta xafladdan isugu ken yeernay wujuuhdan sharafta leh oo ay hor fadhido inaan idin caddayno inaan Salaam Banki oo si aan wada dhammayn uga shaqaynayay beled xaawo inaan si dhammaystiran maanta u daafurno. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan,
muddada 6 sano iyo ziyaadada oo bangigu soo shaqaynayay oo shaqooyin kooban u qabanayay waxaan bixinay lacaga fara badan oo deyn oo bulshadu qaadatay waxaan bulshada u ku furnay akoomo fara badan waxaan fududaynay lacaga badan oo isweydaaranayay waxaasoo dhan oo shaqo ah waan sii yacni bulshada iyada baahideedaan sii dabooleynay bangigu si dhammaystiran uma furnayn waxaan idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan si degan oo qabow oo hufnaan loo furan inaan idinkugu adeegno oo maamulka cusub oo bangiga iyo anigoo maamulaha guud ah inaan idiin adeegno dhammaan shaqaalaha gacmo furan in ku soo dhaweyno idiin adeegno waan soo dhaweyneynaa bangiga Salaama oo laga furay degmada Beled Xaawo khaasatan ganacsatada degmada inay ka faa'iideystaan ayay diyaar u yihiin maalgelinta ay bixin doonaan iyo dhismaha iyo dhinac kastaba hadda ka horna in badan bay wax u qabteen oo qaala ay maalgelin siiyeen wayna ka faa'iideysteen sidaan maqlayna wax hadda fashilmay oo arrintaas ku fashilmay ma jiraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa waana ka faa'iideysanaynaa waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa inaan la noolaano oon ka ganacsanno dadkana uu ku hormaro ayaduna ay nagu hormarto oo ku soo dhaweynaynaa Salaam bangi mas'uuliyiintiisa sare oo martida noo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa magaca iyo karaabadanaga iyo deegaankanaga iyo sharaftanaga ayagana inay qaataan waxaan in badan u mahadnaqayaa dadka meeshaan fadhiyo nooc walba leh shirkadda Hormuud hawsheeda koobaad cid kastaba hala xiriirtay tirarkaan ku taagannahay oo dhaqan oo dhaqaale oo nidaam oo siyaasadeed yay ka mid tahay Hormuud Telecom iyo gaar ahaan laanteedan bangi Salaam waan soo dhaweynaynaa in badan baan soo dhaweynaynaa in badan waan soo dhaweynaynaa afka aan ku soo dhaweynaynaa ma aha keenna hadda aan ku hadlayno annaga hadda degmada Beled Xaawo nahay gobolka Gadaana la yiraahdaa bangigan wuxuu u furan yahay oo soo dhaweynayo oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan horumarintiisa gobolka Gado iyo nawaaxigiisa ilaahay ayaa mahad iska leh على نعمها التي لا تحصى ولا تعد ثم هدنا وحال أمهد علينا إلى مهد إله كذب هرمود شكد هرمود كودهان ثم هدنا بنك السلام عن أوجو مهد علينا إلى أديك كذا فراد البضاني وحلا يوسف وذا الشيء كي يوسفطي أروح على كسو كوبه يا وحي ولا جيرهم على الله الشيء وحي ما بره لو أنا أخيمات كلية عمل كستو ولا قبنا يقولونها هذا عمل كستو ولا قبنا يلا أخيمات دي لجها حنقوم علينا هي عمل كسو وليسنها بركة عنوانها الجملة هان الإخلاص والإتقان معناه واحد قبنا يسوع ربنا سبحانه وتعالى فأمرتنا الإخلاص سجى معناها إن قبنا يسوع سجى درتي هذا معناها اليد كشطة حن آمن سنة ربنا سبحانه وتعالى إنه حتى كاس حيوه غلط هاي كل عهد غلط كإسكاف فرض بدنا ما بوسو كوبي كله حن آمن سنة دي كلمة اسمية هذا ولا الجنس إن وحيالها اللي جالس شيء وطن أمر هبدا موحد ولا شيء يوطن إلى يكون صحمي وقلب كتوات قلب كلامنا والإتقان إن عمل كأد قبليست تسكت ديدت سيد أي مهنيات يا أبوان يا تقول أكسنيت حتى ولا والله أسمع شو بدي إيش النبي صلى الله عليه وسلم هو أكيد قبري لقى حيسي كيهين حوجا مركا هوي الهجاجية إيش وما في عناه إيش وما في عناه هجاجية مركا عمل كسر ولا قبنا يدي الله والله سلاجها روح على من سنة إله هجاج على من سنة هاي فقه جاء وما قال كلمات فرب بدنية مصطلحات فرب بدنية كتبت في القرآن شيخي قيمتي فيستمال وناشري لكن أنا حقوم ملايين هيا رأيهان البنك قالوا ودونا أقسم هاي بنكو وحال بركو أمانة أمانة وحاول ناشر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان كإنه تهاي شيء جوهر اللي وايدون
وماشي كبحي دوان إلى اللي يراد الرهبل وحا كده احتراهل لنو آمن قويس دنبا وحا لديه دوان الرهبل نينك هبل أهابا آمن وبنيك أهل اللورادي نظام كان مركا والنظام أباهن سودوين خاصة دلكن صومالي بربرسان وقفكو حوليس وسن جيبكيس كو هيسن كري waxa weeye waxa ay ka soo qabteen iyo intay ka soo shaqeynayeen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan u dardaarmaynaa mar walba mucaamalaadka maaliga ahi waxa aad u badan gabidhacooda ayaa aad u badan inay midda ayada iska ilaaliyaan oo u dardaarmaynaa waxaan kaloo u dardaarmaynaa bulshada markay ku soo dhex kordhaan inay ayaga ka dhex ganacsadaan iyagana u faa'iideeyaan goobaha waxbarashadu waa idin sugayaan masaajiddu waa idin sugayaan masaakiinta iyo danyartu waa idin sugayaan rabbigeen waxa uu ugu talagalay dadka muslimiinta inay isku noqdaan hal daa'iro isku wareegsan oo kan xoolaha haystaahi uu uga faa'iideeyo xoolihiisa kuwan xoolaha haysanin kan xoolaha aan haysaninna sharcigu wuxuu yidhi waxa aadan haysanin kuma raadin kartid waddo aan xalaal ahayn maxaa sidaa loogu kala jiheeyey oo tawjiiha loo siiyey in mar walbaahi ay noqoto dadku inay ku noolaadaan bisalaam nabadgelyo in lagu noolaado waxa keenayana waxa weeye in aanu ku dhaqanno kitaabkeenna qur'aanka ah